kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka Salma Vlog and Entertainment. waxaan soo gudbinaa waxyaabo kala duwan oo ay muuqaalada vlogiska iyo sheekooyin madadaalo badan iyo qaar dhiirigelina aan dadka la wadaagno. haddaan nagu cusub tahay subscribe dheh channelkan isla markaana qaybta gambaleelka furo muuqaaladan soo gelina like taabo haddii ay ku soo jiitaan. maantana waa xubinteennii toosiyaha jacaylka. dhigiyo lafaha dhuuxaygiyo wuxuu la dardaarmay xaaskiisa nolosha ay bilowga u tahay caawa habeenkii arooskooda koowaad ayaana soo dhammaaday oo farxad iyo reynreyn lagu gelbiyey gurigoodiina loo gelbiyey. xaaskaygiyey soo uma jeedid qof walba gurigiisii ayuu aaday. mashxaraddii waa ay dhammaatay. guurkeennii waxa uu ahaa mid qurux badan lagu abaabulay. hadda waxaa noo bilowday nolosha lamaane. kelinimadii iyo haasaawihii ayaa soo xirmay kala fogaanshaha ku dhisnaa. inta macaanka nolosha aan bilaabin xabiibi waxaan rabaa inaan kula dardaarmo oo aan kuu sheego dhowr waxyaabood, waayo waxba kaama qarsan karo. nafteyda ayaad barkii tahay macaanto ilaa xad. waxa aan isku dayi doonaa in noloshaada aan ku cidlaynin, kuu muujiyo ixtiraam iyo farxadsiin tiro badan. laga bilaabo caawa waxaan noqday carruur. 5 sano ee lasoo dhaafay nolosheyda waxaan ahaa nin weyn oo waxaan kicinayay nafteeda subax hore. waqtiyada qaar waxaan seexan jiray aniga oo baahi i hayso ama gaajaysan. waxaan wax walba u samayn jiray sida aan aniga rabo. cid aan la tashan jiray ma jirin. guriga waxaan imaan jiray xilliga aan doono, balse gacaliso waxaasoo dhan hadda waa ay soo dhammaadeen, ayuu yidhi ninkii caruuska ahaa. ogow, laga bilaabo caawa xabiibi waxaad ii tahay booskii hooyo, i daryeeli lahayd, i taageeri lahayd. qalad haddii aan ku jirana iga leexin lahayd. nolosheyda ayaana qayb ka tahay. ogsoonow, waan ku faraxsanahay inaan yeesho qof lamaane iga fakera. waxaan rajaynayaa xabiibi inaad ii noqoto dugaal wanaagsan oo dhinac kasta iga saacida. dardaarankii ninkii caruuska ahaa ayaa sii daba dhigay. macaanto ha igu noqon qof qalafsan, dabeecad xun. waxaana aniga kuu ballanqaadayaa inaan noqdo qof aan kugu madax adeegin, rabitaankaaga diidin, ilaa wax macquul gal aan noqonayn. aniga waxaan xanaanayn jiray wiilal iyo gabdho ila dhashay oo booska aabba aan ugu jiray. sidaas darteed dhib iguma aha in aan adigana booska aabba kuu buuxiyo. gacaliso, ku soo dhowow nolosheenna cusub, ayuu ku soo gebagabeeyey ninkii caruuska ahaa dardaarankiisii. gabadhii ayaa oohin ama ilin iska celin weysay farxad darteed, iyadoo isku duubtay kuna tiri, xabiibi, allah naga xijaabo shayddaanka iyo kuwa nacabka ah. sidee u aragtaa muuqaalkan daawade ee ku salaysan qalbigaasi dareenka xambaarsan habeenka koowaad ee aqalgalka lamaanaha? ma inay isku laabxaarnaadaan oo haasaawihii iyo wixii wada socodka shukaansiga ee telefoonka ku dhisnaa laga soo gudbo? sideese u aragtaa in tiirka nolosha iyo gurigaasi la yagleelay inuu ku dhismi karo? aragtidaada nala wadaag qaybta hoose ee kommentiga. waad ku mahadsan tahay muuqaalkan haddaad daawatay. hadduu ku soo jiitay leeg noogu dhufo. haddii aad sabskrayb hore noo dhihin, qaybta sabskraybka noo taabo. waana kaaga mahad celinaynaa inaad muuqaalkan dhammaysatay. gudahaana daawadeen intaasaynu ku soo gebagabaynayna xubinta toosiyaha jacaylka. Salma Vlog and Entertainment ayaad ka daawanayseen. waad ku mahadsan tahay inaad na daawatay oo muuqaalkan aad la socod. intaan dib dambe isku arki doonno muuqaalkan mid ka xiga, sidaas iyo nabadgelyo. wadaadigu badanaa muuqaagu dheeraay intaadiga ag maqantay masexdu habeenkii
waan soo mirkacayaa mugdiguna hafeenadan ila sii madooba yaanan madi ahaaniye mar wadan jeclaay kala marmimayne maru nabad ku soo